محافظka kulmiye oo ka furtay maanta degmada Seylac xafiiska ugu bilicda wanaagsan furitaankan xafiiskani cusub uu ka furtay xisbiga kulmiye degmadani Seylac ayaa waxa halkaas iskugu yimiday dadweyne aad u tiro badan oo ah taageerayaasha xisbiga kulmiye sidoo kalena waxa ka soo qayb galay wasiir ka socda xukuumadda Soomaaliland barasaabka gobolka Salel Axmed Naasir Maxamed Xaashi gudoomiyaha degmada Seylac Xuseen Ila Barkhadle qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Seylac odayaasha iyo uqaasha deegaanada kala duwan ee gobolka Salel yaro iyo sidoo kale ururada haweenka ee degmadani Seylac dadkii iyagu ka soo qayb galay furitaanka xafiiska cusub ee ku yeelan doona xisbiga kulmiye gobolka Salel ee degmada Seylac ayaa waxa ay ku dheeraadeen waxqabadka xisbiga kulmiye intii uu talada hayay iyagoona taageero mug iyo miisaan la u muujiyay xisbiga kulmiye ninkasto wuxuu kale waa loo ogaay waxtarka kulmiye cidda oo ninkasto uu ogyahay intaa uu haysto madaxweyne siiraayo wax qabad badan buu sameeyey wax qabad badan oo buriga iyo badda soo baxaan musabbixi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisaba maxaa dhacay inay si degdeg u soo baxaan taageero hiliyo hore waan la garab taaganahay geed dheer iyo geed gaaban waxaan ugu fushanahay wax qabadkoogii hore soo qabteen dhawaan kooga dambana waanu diyaar baanu nahay reer Salel waa taageero kulmiye taageero buuxday u hayaan horena waynu ugu haynay haddana waynu u haynaa waxaan halkan mahadnaq u yahay hambalyo ugu jeedina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ahaa aabihii xisbiga kulmiye oo milihiisii aynu aragnay iyo waxqabadkiisii isla markaana dhaxal kale oo ka wanaagsan ka tagay oo noqday madaxweynihii horeeyay Afrikaana ee ninkii bedelayay abuura ee ka tagay ee si tilmaamo noqday sharaf bayna noqotay taasi أحمد ياسين محمد برخدله gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka junayno taageeradeena aan u hayno haddaan nahay gobolkii siiba degmadeena Seylac aan u muujinayno musharaxa madaxweynaha cusub ee madaxweynaha soo socda musabbix cabdi iyo ku-xigeenkiisa taageerada waa taageero waa taageero sidaas oo maaha ciddii nasiib u yeelatay baa imika intaa heshay degmaduna waa dhul ballaaran laakiin intaan nasiib u heshayna waan muujin intaa iyo in ka badan waxaan diyaar u nahay inaan u gudbinaynaa haddaan anugu weliba gudoomiye degmada haya intii dad deegaankiiba inaan diyaar u nahay meel kastoo degmada laga joogo xagga waxqabadka xisbiga kulmiye dawladdeena ka soo dhalatay markii hore ee uu hoggaanka u yahay ama madaxweynaha u yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxqabadkiisii hore waynu aragnay gobolkeena hore uu mariyay musabbix cabdina wuxuu inoo ballan qaaday in uu wixii inaga dhiman oo dhan uu dhammaystiri doono hadduu inta kaliya sheegi karo dalku hore uu maray laakiin gobolku inuu ka haray madmuuda inkastoo Xuseen ila xoogaa waa wax fiican uu ka qabtay inta runta haddaan dadku isku sheegin waa mashkilad gabagabadii munaasabaddan ayaa waxa isagoo halkaas ka hadlay xildhibaanka da'da yar leh Axmed Yaasiin Maxamed gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka insha Allah waxaan ka filayaa gobolkan Salel kulli cid kale la isugu iman maayo inta ugu badan 95% waa xisbiga waxaan taageero u muujinayaa dadweynaha iyo dadka deganba madaxweynaha mustaqbalka musabbix cabdi iyo ku-xigeenkiisa Abdurrahman Ismaaciil Seylici ahna imika madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay noo badanaynaga kolley wada shaqayn wanaagsan baa inoo ballama xaruntana uma furna cid uma furna dadka gobolka oo dhan bay u furan tahay dadka gobolka oo dhan baa u siman shakhsiyaad gaarana uma furna taa ku talagala hadduu alla idhaaho furitaankan uu ka furtay xisbiga haatan talada haya ee kulmiye degmadani ayaa noqonaysa xisbiga ugu dardarta wanaagsan ee gobolka Salel marka loo eego xisbiyada kale waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhigadalool TV-ga caalamiga Star TV magaalada Seylac